fadhigii saaka xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland uu shir gudoominaya gudoomiyaha golahaasi Salebaan Maxamuud Aadan oo ay saaka xildhibaanadaasi u ballansanaayeen xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda xeer lambar 14/2021 fadhigan ay fadhiyeen 52 xildhibaan oo kamid ah xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland waxa ugu horeyn xeerkani faahfaahin ka bixiyay xildhibaan Ilka Case oo kamid ahaa xildhibaanada iyagu gacanta ku hayay xeerkani shir gudoonka mudanayaasha saxaafadda shaqaalaha waxaan ku salaaminaa salaanta islaamka assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh annagoo ah guddiga arrimaha gudaha nabadgelyada iyo difaaca ee golaha guurtida ahna guddidii haysay xeerkan wax ka bedelkiisa kaabista xeer ururada iyo asxaabta markaan aragnay qodobka 16aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland markaan aragnay qodobka 9aad 22aad 23aad iyo 38aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland markaan aragnay wax ka bedelkii golaha wakiilada ee xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta xeer lambar 14/2021 markaan xaqiijinay inay lagama maarmaan tahay in wax ka bedelka iyo kaabista lagu sameeyo xeer lambar 14/2021 si muwaadiniintu u gudan karaan xuquuqdooda siyaasadeed si waafaqsan dastuurka iyagoo uga qayb qaadanaya doorashada ururada iyo xisbiyada siyaasadeed oo si nabadgelyo ah dadweynuhu si toos ah ugu doortaan hanashada 3 xisbi qaran oo 10kii sanaba awoodda iyo talada ku tartama markaan ku qanacnay baahida loo qabo kaabistan iyo wax ka bedelka xeerkan markaan guddi ahaan la fagurnay istusnay baahida loo qabo wax ka bedelka golaha wakiilada wax ka bedelkii golaha wakiilada waxaanu isla qaadanay inaanu golaha u soo jeedino in xeerka ururada iyo asxaabta xeer lambar 14 sida uu kaga yimi golaha wakiilada cod loogu qaado laguna ansixiyo wabillahi tawfiiq assalamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh inta kadib gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Salebaan Maxamuud Aadan ayaa cod galiyay xeerka waa xeerkani saaka ansixiyay 48 xildhibaan halka hal xildhibaan uu ka aamusay hal xildhibaan uu diiday gudoomiyaha golaha guurtiduna aan codaynin isagu xeerkuna uu sidaasi ku ansaxay waxa la sugi doonaa go'aanka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi xeerkan uu ka qaadan doono عمر علي تعالى عمر شباش تلفزيون كبلشوا مقالة هرقيسا قنمال إسلام فتوى ما قبتا ويديمو ديني مدونيسا موبيل كاغا إناد كبرتو 10 ديني وأف صوماليا إسلام فتوى وحد كيليسا فتوى ديني تفسير حديث فقه سيرو dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir 15 eber abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell Dahab Plus oo ku fududeynaya isla markaasina ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab Dahabbay iyo adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus